dumarkii waxay fureen inaan makiinad doono ilmaha yar xundurta loogu gooyo. dhinac markii laga fiiriyo waa arrin xogaa muruga leh, dhinac markii laga fiiriyana iyo say ku dambaysana farxad iyo rayrayn ayay lahayd. arrintaasi waxay ahayd gabadh ayaa waxay ka soo tagtay baadiyo. gabadha waxaa la dhihi jiray hooyo khadra ayaa la dhihi jiray. waa gabadh yar oo dhallinyaro ah oon sa u sii weyneyn oo qof da'deedu aad u yar tahay abay ahayd gabadhaasi. gabadhaas waxay ka soo tagtay baadiyaha burca ayay ka soo tagtay. uur ayay lahayd, dhakhaatiirta ayay culays badan bay dareemaysay. dhakhaatiirta ayay u timid. dhakhaatiirtu waxay baadheen caloosheeda ilmihii ku jiray ayay baadheen, waxayna ogaadeen mataano inay yihiin. way u sheegeen gabadhii. gabadhu marka xanuun iyo culays fara badan iyo waxay dareemi jirtay, waxyaabo badan ayay dareemi jirtay. gabadhii markay sidkeedii ama wakhtigeedii soo dhowaaday, faamiligii hargeysa iyo berbere iyo halkaa joogay oo gabadha la dhashay baa waxay dhaheen gabadha baadiye haddaye maadaamay culus tahay mataanana ay wado ha la soo dhaadhiciyo ha naloo keena, annaga ayaa umul bixinayna ilaa inta ay ka dhalaysa gabadha annagaa haynayna. gabadhii burca ayay timid, baadiyihii ayay ka soo safartay, burca ayay imaaday. hooyo khadra markay imaaday, burca markay imaaday ay dhowr beri ku nasatay. baska la yidhaahdo ama basaska waa shirkad weyn, waa kambani weyn oo aad looga yaqaano deegaanka somalilan oo la yidhaahdo bari iyo galbeed. kambanigaas bas ka mid ah ayay soo raacday ayada oo ayna dad quman ayna la soconin ayay soo raacday. dadka reer baadiyahana saad u taqaanaanba inta badan gabadhu sidkeeda iyo inta bilood ay caloosha ku sida ilmaha maba garanaysa inta badan. qiyaas iyo waxay wax ku inta badan ku cabiraan, qaab yar qiyaaseed ayay wax ku cabiraan. gabadhii marka waxay islahayd muddaa kuu dhiman. waxay soo raacday gaarigii, baskii bay soo raacday. baskii markuu dhexda marayo uuna u soo dhoweyn berbere iyo dhulkii ay ku soo socotay gabadhu, waxaa dhacday gabadhii inay fool qabato. fool ayaa qabatay. taandiboygii ama kirishboygii ama sa u taqaanaanba, kolley aniga waxaan u aqaanaa kirishbayna waan u naqaanaa, waxaa kaloo loo yaqaanaa taandiboy. ayaa wuxuu arkay gabadhii inay foolatay, ayuu ka war helay oo dumarkii meesha ka agdhowaa iyo nabarkiiba gabadhii qabtay. soomaalidana horeyba waxay u dhahaan fool iyo mantagba meeshii aad ku waday kuguma simaan. gabadhu marka meeshii dee ay ku socotay kumayna simin. waxay fuushanayd sida ay inoo sheegayaan darawaliintu inoo sheegayaan baska kursiga 24 ilaa kursiga 23 ayaa loo baneeyay ayada. labadaa kursi ayay gabadhu fadhiday oo loogu talagalay maadaama qof culus ahayd, calooshii weyn tahay. meeshaas ayay gabadhu ay fadhiday oo loo faaruqiyey markii horeba sida ayagu ay inoo sheegayaan. bal ila dhegayso. kursigeebay fadhidaa baan ku idhi. wuxuu idhi 24 iyo 23 bay fadhidaa. waxaan ku idhi dee bal xaaladeeda la soco. gabadhu ku fadhiday meesha kursiga ayay fadhiday. fooshi ayaa qabatay. darawalkii ayaa loo soo sheegay oo taandiboygii ama kirishbaygii ayaa u soo sheegay. darawalka waxaa la dhahaa siciid ayaa la dhahaa. marka wuxuu sameeyey, wuxuu yidhi niyow bal gabadha maadaama oo nabarkii hadda qabanayo maxaan samaynaa. dadkiibuu la tashaday, rakaabkii ayuu la tashaday, mikrofoonkii ayuu daaray suu isagu inoo sheegay. mikrofoonkii ayuu daaray, dadkiibuu la tashaday. waxaa layidhi inawad bal aanu socona wayn ka gaarsiinaynaa. dhexda markii la marinayaa layidhi gabadhii xaaladeedu waa serious, way dhalaysaa, ilmihii baa soo baxaya. marka wuxuu sameeyey nin aad u qiimo badan buu ahaa siciid. walaal siciid, waxaan rabnaa dadka basaska qaba meel kastoo ay joogaan gobolada soomaaliyeed ay ka joogaan inay ku daydaan walaalkaas siciid. siciid wixii rag ahaa buu yidhi hala soo baxo si ay hooyadu ugu dhasho meeshan. hooyooyinkii kalena wuxuu yidhi iyo dumarkii kale meesha saarnaa, gabadha si sharaf leh ha looga dhaliyo oo tabartiinna ah ha looga dhaliya buu yidhi. raggii oo dhan buu yidhi bannaanka u soo baxa. bannaanka looga soo baxay. dumarkii daahiyaday sii daysteen basaska ama baska daahiyadiisii bay sii daysteen. waxay sameeyeen inay ka umuliyaan gabadhii khadro ama hooyadii khadra. ileen waa hooyo, mar hadday dhashay gabadhu waa hooyo. marka dhalitaankii iyo hawshii baa u bilaabatay. gabadhii waxay dhashay wiil ayay dhashay oo mataankii koobaad ee soo baxay ah. mataanka labaadna wuxuu noqon doonaa gabadh ayuu noqon doonaa. wiilkii markuu dhashay xuduntii in laga gooyaa la damcay. waxaa la yidhi siciidow noo raadi sikiin ama makiinad noo raadi baa lagu yidhi, aan xudunta canuga uga jarno. gaariyaashii meelihii maraya oo dhan buu dhex orday, meelihii buu ka raadiyey. qaar baa waxay i dhiibeen buu leeyahay toori, ay dhaheen kaga jar xudunta. marka toorina waxaa idhi waxaaba laga yaabaa inay cudur iyo wax ka qaado, markaa ma samayn kara baa idhi, toorida iga dhaafa. isagoo inoo sheegaya intaas waa kan. haddii dhowr gaadhi baan joojiyey
dadkii raggii baabuurka la socdayna waan weydweydiiyey aduu qaar baa midiis marka ka soo wuxuu saaray yidhi walaal markii labo ay kale dhexda marayso waxaa la yidhi buu yidhi ilmo kale ayaa soo socda marka iska dhaaf bay dheheen buu yidhi dumarkii ilmo kale ayaaba dhexda kusoo jira oo mataan ah sidii baan ku dhaafnay gaari bay dalbadeen dabcan oo kambeni uu leeyahay gaarigii baa loo soo diray dhexda ayuu kaga hor yimid ama meeshii buu kaga hor yimid gabadhii baa lagu qaaday oo hal canug dhashay hal canugna ku laaban yahay siciid bay dhashay wiilkii waxay u bixin doontaa waan ka sheekayn doonaa markaa gabadhii berbera ayaa la geeyey canugii gabadhii labaad oo canugii labaad ee mataanka ahaa oo gabadh noqotay waxay ku dhashay berbera ayay ku dhashay ninka la yidhahdo siciid runtii wuxuu sameeyey naxariis iyo wuxuu suubiyey maamul aad u qiimo badan runtii aad loogu riyaaqay oo shirkaddu u riyaaqday oo bulshadii u riyaaqday ayuu sameeyey gabadhii marka meeshii bay ku dhashay canugii labaad oo gabar ah gabadhii marka waxay tidhi canugeygii koobaad ee wiilkaha waxaan ugu magac darayaa ninkii darawalka ahaa ee siciid la dhihi jira ayaan ugu magac darayaa siciid bayna u bixisay gabadhiina waxay u bixisay sahra mayna sheegin gabadha sababta ay ugu bixisay sahra laakiin waxaa laga yaabaa dumarkii ka umilinaya hooyooyinka ka umilinaya mid kamid a inay ugu magac dartay baa laga yaabaa laakiin iyadu mayna sheegin wiilka unbay sheegtay inay siciid ugu magac dartay haddaba ninkaas siciid nin qaali ah weeye waxaa leeyi waa dhacdadii labaad ee basaska uu wado isagu iyo baska uu wado markii labaad ay gabari ku dhex dhalayso weeya isagu wuxuu leeyahay aad baan ugu faraxsanahay inay gabari iigu dhasho meesha waa barwaaqo waa nicmo waa basaskii kale ee shirkadu lahayd barwaaqo iyo nicmo iyo waxaan la dheerahay weeyaan buu leeyahay isagu waa nin aad u iimaan badan runtii waa nin naxariis ka muuqato isaga iyo taandhibooygiisaba haddaba maxaa dhacay shirkaddii intii mayna kaga harin ilmihii waxay sameeyeen xaflad bay u suubiyeen gabadhii markay umul baxday waxay u keeneen hadiyad bay wiilkii yaraa u keeneen ee siciid gabadhii sahrana hadiyad bay gooni ugu keeneen hooyadii umusha ahaydna hadiyad bay gooni ugu keeneen hadiyaddii balila daawa ayagoo la guddoonsiinayo waxaanu siin doonnaa insha allahu sahre yar oo insha allahu aan leenahay soo karo soo barbaar insha allah waxaa sidoo kale ayada inaanu hadiyad u sidnaa dabcan waa daawatay iyagoo hadiyaddii la guddoonsiiyey oo wiilka tiisii iyo hooyada tii gabadha oo labadii mataanaha kale ah waa siciid iyo sahra iyo hooya khadra intaa waxay ku dareen oo kale shahaado sharaf inay guddoonsiyeen siciid kambenigii inuu guddoonsiyey shaqo wanaaggii iyo qaabka uu sameeyey oo runtii haybad iyo karaamo iyo sharaf u soo hooyey shirkaddii iyo basaskeedii iyo macaamiisheedii li'anna dadka macaamiisha ah bay ku nooshahay shirkaddu ay ku taagan tahay oo xubnaha iyo cagaha ay ku taagan tahay waa dadka haddaad dhaqan wanaagsan kula dhaqanto runtii xaqiiqatan shirkadda sumcaddeedii baad kor u qaaday marka shahaado sharaf ayay guddoonsiyeen waa kan fulisay aad baad u mahadsantahay jazaaka allahu khayr sidaasi ayaa runtii shirkadduna ku waa ogtahay daawateen adiguna inaad ka sii waxaa kaloo shahaado sharaf guddoonsiyeen wiilkii taandhiboyga ahaa ama kirishboyga ahaa ee wiilkan la socday ee gabadhu intay ka dhalaysay ilaa markii ugu horraysay fooshu qabatay u soo sheegayay walaal siciid u soo gudbinayey oo nin aad u qiimo badan ahaa ayadana kambenigii wuxuu siiyey shahaado ayuu guddoonsiiyey iyadana ila daawo jamaal maxamed isaguna runtii waa qofkii waa inankii gaariga la socday runtii waa daawatay isagana qaabka loo guddoonsiiyey iyo wiilkaasi runtii wiil mutaysan buu ahaa isagii siciid oo darawalkii abaa kambenigu waxaa kale uu sameeyey intaa kali amuna ku joogsanin waxaa la yidhaha kambeniga dabcan basaska iskale waxaa la dhahaa bari iyo galbeed baa la dhahaa macnaa bari iyo galbeedba waddanka somalilan bay uga safraan waa basas caam ah waa kambeni caam ah waxay siiyeen shahaado saddexaad hooyo khadra cafwan oo hooyadii labada mataanahayd ku dhex dhashay gaariga kursiga 14 iyo kursiga 13 ku dhex dhashay hooyadii waxay guddoonsiiyeen shahaado tilmaamaysa bas kasto ay leeyihiin nimanka bari iyo galbeed ay leeyihiin inay markay u baahato xilligay doonto firi inay ku raacayso firi way meel kasto adduunka inta ay nooshahay kambanigaasina shaqaynayo firi ayay ku raacaysaa wax lacag laga qaadi maayo shahaadada bay la imanaysaa meesha kambanigaasi uu joogaba waa karaamo kale iyo sharaf kale iyo wanaag kale oo bulshada loo qabanayo weeyaan arrinta kale ee runtii la yaabkahayd waxay ahayd lacag amba bixina maadaamay gabadhii dhashay reerkeedii u laabanayso baadiyihii ku laabanayso dabcan basaskii ayay ku safraysaa oo si bilaasha ugu safraysaa iyadii ilmaheeda si wanaagsan gurigeedii lagu geynayaa waxay ugu dareen kharash ayay ugu dareen horta shahaadadii ayagoo siinaya waatana ila fiirsada waxaan sidoo kale hadiyada iyadana u sidnaa insha allah umusha
oo aan leenahay iyadana insha allahu ilaahay ha idin caafiyo way oo ha guddoonsiyeen idinka dhigo insha shahaadadii allahu reer haddana badan waxay ugu darayaan dhaqaale iyo lacag ay ku baxdo ay gurigeedii iyo reerkeediiba ku tagto ayay ku caawinayaan ayadana waa tana dhegaysta oo fiiriya guddoonsiin doonaa lacag yaraan ugu talagalay muxuu waa ahaay qadiyad safar farxad maadaamay safar dambe geli iyo doonto insha maamuus allahu wanaagsan bale labadaba leh qadiyadan runtii ay sameeyeen nimanka bariga iyo galbeedka la baxay oo niman shirkad oo weyn oo basas leh waa niman runtii xaqiiqatan aad u qiimo badan waxay sameeyeen naxariistuna waa shay qaali ah weliba naxariistu markay ugu fiican tahay waa markii hooyo iyo dhallaanka loo sameeyo ayaa ugu qiimo badan ilmo yaryar hooyo uur leh hooyo ilma nuujinaysa hooyo ilma korinaysa markii loo sameeyo wanaagga iyo naxariistaasoo kale loo muujiyo way ka qiimo badan tahay runtii kulligan hooyooyin baa ina dhalay hooyooyinkeen naxariista inaynu u galno hooyo kasta naxariis bay u baahan tahay in loo sameeyo haddaba waxaan leenahay waxaan qisadan u soo qaatay runtii waa qiso aad iyo aad aniga ii farxad gelisay runtii gabadha dhalitaankeedii iyo xilliga iyadoo xaamilo ah oo xilliga ugu dambeysay inay soo safartay inay maaragtay dhexda ku dhashay naxdin bay xoogaa leedahay haddana habka loola dhaqmay ee shirkaddu u maamuustay waa hab aad u wanaagsan kulli aniga somalilan haddaan tago shirkaddaa shirkad aan ahayn runtii ma raacayo shirkad aad u qiimo badan oo runtii xaqiiqatan baal dahaba in lagu qoro magaceeda ay tahay weeye bariga iyo galbeedka runtii aniga kiliibkayga ama fideogayga cid kasta u gaara waxaan kula dardaarmayaa shirkaddaa runtii ka jeclaada shirkadaha kale shirkadaha kalena waxaan ugu baaqaynaa ee basaska leh ee kambaniyadoodu ay waddamada soomaalida ka shaqeeyaan meel kastoo ay soomaali joogto waxaan leenahay naxariistaas oo kale muujiya kow dhaqaalaad ku helaysaan karaamaad ku helaysaan ilaahay agtiisaad kaga helaysaan maaragtay sharaf kaga helaysaan ajar baad ku helaysaan laba sumcad iyo sharaf baad ummadda soomaaliyeed dhexdeeda ku yeelanaysaan heer waxay noqonaysaan la dhaho kambani hebel waa kambani fiican shirkad hebel waa shirkad fiican aan shirkadda dadkeena macmiil uga dhigno aan raacno umuluhu ha raacaan hooyooyinka uur kale ha raacaan hooyooyinka maaragtay tabarta daran ha raacaan ilmuhu ha raacaan waayeelku ha raacaan in maaragtay shirkaddii ay kobtaa ku hesho sumcad weyn oo bulshada dhexdeeda ay dhaqaalana ka suubin karto ilaahay agtiisana waxbay ku heli bulshadeediina waxbay ka helaysaa marka runtii ha lagu daydo kambaniga lagu magacaabo bariga iyo galbeedka ee ka jira waddanka somalilan ee naxariistaa aadka u qiimaha badan sameeyey dhammaanteenna qofkii wanaag sameeya waa inaynu dhahno shukran lakum waa inaynu dhahno nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man laa yashkur innaas laa yashkur illaah qofka aan bini aadanka ku shukrinin waxay qabtaan iyo wanaagay suubiyaan ilaahayna kuma shukriyo marka walaaladeen waan u shukrinaynaa annagoo oon dal la joogin isku dal aan ahayn isku meel aan joogin laakiin waa soomaali waa walaaladannado waxaan leenahay shukran lakum waxa aad samayseen ilaahay ajar iyo xasanaha idinka siiyo kambanigiinnana kambani jira oo jooga allah ka dhigo hooyana waxaan leenahay adiga iyo ilmahagaba baraari iyo wanaag ku noolaada hooye khadra meel fiicanna ku wada noolaada waxay ballan qaadeen oo kale oon ka tegey inay ilmaha waxbarashadoodu ay markay gaadhaan waxbarasho ilaa heer malcaamadeed ilaa heer dugsi heer iskuul madariso inay garab taagnaanayaan shirkadoodu intay jirto guulaysta oo magaciinu haraaga ayaan leenahay